ololaha isxilqaan oo la bilaabay muddo dhowr bilood ka hor ah waxa magaalada Cadaado hadda ka soconaya xarumo lagu dhisayo oo ah xarumaha danta guud ama xarumaha dawladda sida eedo muuqata waxa halkan ka soconaya dhismaha xarunta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda 12aad oo lagu dhisayo ololaha isxilqaan oo ay dhisayaan ama iska kaashanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Cadaado iyo maamulka degmada Cadaado waxa dhismahani uu hadda maraya meel gabangaba ah waxaana la gabangabay rabaa qaybtii guriyaha ama qolalka waxa aan halka ay wax marayaan iyo dhismahani sida uu socdo aan ka wareysan doonaa Diiwaan Macallin Cabdullaahi oo kamid ah guddiga ololaha isxilqaan ee magaalada Cadaado waa mahadsantahay wariye Mudane Cabdi Xasan Awowe taliskan hadii aan ka hadalno waa xarun aad u weyn oo ilaa 4,000 oo mitir ah oo isku weera waxaad u jeedaa iridda koobaad iyo iridda labaad iyo hadda oo aan joogno xarunta taliskeedii gurigii weynaa ee xarunta taliska iyo meesha ay hadda ciidamadu degan yihiin oo teendhooyinka ay ka dhisan yihiin iyo meesha aan u astaynay inaan ka dhisno guriga amaanduulka iyo meesha laga stoorka in laga dhiso loogu talagalay intay isku jiraan waxa dareemi kartaa inay tahay xaruntii ugu weyneed ee gobolada laga dhiso ciidamada ay leeyihiin inay tahay maalintii aan bilaabayno dad badan baa waxayna laayeen war waa waalantihiin waxaan dadkana ku baabi'inay adinkuna ku naf iyo maal beelinina laakiin maanta waxaan joognaa alxamdulillah dadkiina waan dhiiri gelinay waxaana tudna dadku hadday isku tashadaan inay wax qaban karaan waxaana rajo weyn wali ka qabnaa inaan dadka warxmatashiilka warkoodii si aan ugu tumanno uga adkaano inaan dawladda garab istaaggeedii iyo hiilkeedii aan helno dadkuna ay ogaadaan inay yihiin dad dawladda leh si ay dawladnimadii dadka ay u jeclaadaan oo ugu soo dhawaadaan oo ay dadku u arkaan waxyaalo kala badan ay ugu dhiiradaan waxa jira xarunta asluubta aan dhagax dhignay waxa jirta xarunta baarlamaanka aan dhagax dhignay waxa jirta xarunta booliska aan dhagax dhignay immigrationkii iyo xarumo kale oo tiran badan xarunta niso aan darbigeedii wareejinay oo aan dhamaantood rabno markii aan midaan ka soo jeesano inaan shaqadii halkan ka sii wadno hadii ay dawladda federaalka noo ogolaato nuguna garab siiso Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cadaado